Suldaan Abu Sufyaan oo ka mid ah madax dhaqameedka beelaha Gabooya ayaa wareysi gaar ah oo telefishinka caalamiga ah Cable TV ku siiyay magaalada Hargeysa ayaa si weyn u dhaliilay xisbiga mucaaradka wadani isagoo ku eedeeyay xisbigaasi inuu siyaasadeeyay deeq waxbarasho oo bilaash oo loogu deeqay dadka beelahaasi. halka waxaan u soo jeedinayaa hadal xisbiga wadani waxaan leeyahay arintan cilaajinteeda iyo qadiyadan hagaajinteeda iyo ummadan ka samata bixinta dhibaatada haysata iyo siyaasadda inaynu kala saarnaa muhiim weeyaan caawinta danyarta iyo had iyo jeer samafalka la siinaya ee dadka muxsiniintiidu ku soo dhiibaanna ina siyaasadeesaana waa laga fiican haddii xisbiga wadani oo runtii waxa weeyaan arinta madaxdiisu ku wada socotana waa arin gaar ah haddana odayaasha deegaankaas waxaan ka qaadan doonaa go'aankeeda haddaanay ku wada soconina inay updating sameeyaan oo arinta ay dib u saxaan haddii shakhsiyaad gaar ah arinta wataan waa muhiim annagu ma rabno haddana madax dhaqameedka reerka nahay in dadkan danyarta lagu kala saaro siyaasad samafal loogu siinay iyadoo mucaawanada la siinayo in la siyaasadeeyo runtii wax laga yaabaa in la yaabto tirada war ma sultaanku suu wuxuu wadaa wuxuu meed maxaa ugu dambeeyay waa ka la siisido shirkadda Cali Galle Group ilaahay kharasiyo miisaanka xasanaadkana ha u saaro laakiin waxa leenahay Cali Galle Group samafalka aad bixisay ee aad markaa dhiibtay waa la siyaasadeeyay waxaana lagu saleeyay siyaasad baa lagu taasina ma anfacaysan goobaha waxbarashada iyo goobaha diiniga in la siyaasadeeyo oo la kala dilo oo waxa way cuqdad la isu galiyo waan uga digayaa xisbiga wadani sidoo kale suldaanka ayaa si weyn uga biyadiiday magacyada halkudhagyada ah ee loo adeegsaday kamidka yihiin dadka la haybsooco iyo sidoo kale dadka laga tirada badan yahay waxaanu bulshada ugu baaqay in laga daayo eray bixintaasi arintan anagu waxaan ka soo horjeednaa in teetal looga dhigo iyo magac dadka la haybsooco dadka laga tirada badan yahay dadka Gabooyaha iyagoo dadku magacyo asala iyo nasab asala oo ilaahay siiyay oo waxa way ay ku abtirsadaan iyagoo leh waxaan abtirsiintooda ku jirin in teetal iyo markaa astaan lagu gartay in laga dhigaa arintan ka diidanahay taaway qofba meel buu ku tira badan yahay haddaad halkan adigu ku tira badan tahay meel aan kaaga tira badanahay baa jirta marka arrimahan anagu diidanahay taaway suldaanka ayaa sheegay in beelahan ay ku qanacsan yihiin xilalka wasiir ku xigeenimo isla markaana sheegay inay ka kori doonaan aad wax lagu soo celceliyaa wasiir ku xigeen ma dhaafno waan u baahanay xaq u leenahay inaan dhaafno inagana inagu xidhantahay inaan dhaafno dadaalkeedan la nimaadno laakiin wasiir ku xigeenka inuu yasinda leen beela kalaba wasiir ku xigeen bay haystaan oo ay ku fadhiyaan meesha waa xil qaran weeyaan marka inaa qoorsatad yaraysataan isaga laftigiisa mid meesha qabata ma waxa weeyaan leenoo kordhiyo oo kor loo sii socdo inagana dadaalkeena way ku xidhan tahay madaxda qaranku madaxweynuhu hore ugu dambeyntiina Suldaan Abu Sufyaan ayaa beeshiisa ugu baaqay waan mujtamacayga guud ahaan leeyahay isbedelku gacantiina ku jira haddana idinku ogolaanin ina isbedeshaan haddana idinku awlaadiina maal gelinin daaraha daami ka dhisan idinka dhistay cidina idinka ma caawin nina jaajoor idima keeno nina sibir idima keeno waxa way laakiin awlaadiina ina maal gelisaan uma soo jeedaan inaad maal gelisaan baa la rabaa waayo waxa lagu caawinayaa waa ku milgaad haddaad maskaxda gashatad aaminto oo kii ku caawinayay markuu inteereedu karayay ku siiyo ka jaro aad tiraado mid kale sugaya caawiya waxaan leeyahay arinta noocaas aan ka xaruuno injiyada iyo ururada dadka tamar darro ku abuuraya maskaxdoodana dilaya oo u gareynaya inaan waxba qabsan karin in wax loo qabto ay yihiin dad la qoodiyo mooyaan kuwana ka digtoonaada balle beddelku gacantiina ku jira ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waridiku isbedela bulshadan kalena waxa leen war ummadani way wax badan bay qabsatay intay qabsatay inaad waxa weeyaan garab taagtaan idinkuna aad isbedel la timaadaan oo aragtiyihiina wax ka bedeshaan oo aad ummadan soo dhaweysaan oo dad walaaladiina u aragtaan oo waxa weeyaan aad ka daysaan waxay dhibsanayaan baan iyagana runtii u soo jeedinaya Cable Cudi Cable TV Hargeysa magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha